xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo ah xildhibaan u dhaqdhaqaaqa arrimaha isboortiska gobolka Togdheer ayaa ka difaacay eedeymo uu maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad u soo jeediyay agaasimaha wasaaradda ciyaaraha iyo wasiirkiisa. xildhibaanka oo kulan warbaahineed ku qabtay garoonka Alamsey Stadium dhexdiisa ayaa sheegay in aanu maayirka kula socon eedahaas uu u soo jeediyay wasiirka iyo agaasimaha ciyaaraha, isagoo sidoo kale dhaliilo culus dusha uga tuuray maayirka degmada Burco. maanta way bishu tahay 9 oo aan ku suganahay garoonkii kubadda cagta Alamsey Stadium. maalintii ugu dambeysay ee garoonkan aanu nimaadnay ka hadalno waxaan ahayn wafdi isugu jira xildhibaano iyo saraakiil wasaaradda ciyaaraha ka socda iyo maayirka. waxaan kaga dhawaaqnay garoonka in la dayactirtoono wax laga qaban doono. waxaan halkan ku shaacinay in laga qayb qaato dowladda hoose ee Burco ay doorkeeda qaato. wuxuu maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Muraad ka ballan qaaday halkan in dowlad hoose ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii maintenance wax laga qabanayo haddii albaaltay iyo haddii hagaajinta inuu isagu samaynayo. anaguna waxaan ka ballan qaadnay anigu Mubaarak ahaan $500 aan bixinayo mushaarkayga jaakaraacina $1,000. ballan qaadkii halka ka dhacay $1,500 shantii aan ballan qaaday iyo kunkii uu ballan qaaday jaakaraacin way fushi. laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayirka magaalada Burco oo halka ka ballan qaaday warbaahinta daatiin dubba u eegi doontaan kaydkiina inuu halka ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhalinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid been noqotay. 2 casho ka hor in xafiiskiisa ugu tagnay anagoo gudidii xildhibaanada ahayd waxaan ku bal wax kale iska daamaa yare albaalada garoonka 3 albaalo kaliya oo inuu garan karno lacag tahay $500 samee si cad buu diiday maayirku inaanu diyaar u ahayn sport iyo garoonka wax ka qabto. si cad buu diiday marxaatigeeda ilahayd xafiiskiisu ahaa. waxa kale oo noogu jira miisaaniyada 90 milyan oo loogu talagalay sportiga gobolka. taasi xitaa garoonka in laga dayactiro oo dhalinyarada looga qabto ay tahay runtii marka caynka tahay sidaa tahay waxaynu maqlay warbaahinta ku arkaysay inuu maayirku isagoo iska dhigaya inuu hadlayo dhalinyarada sportiga gobolka oo ka damqanaya hadalkii ka yimid agaasimaha guud inuu iska dhigaya nin u damqanaya dhalinyarada sportiga gobolka oo uu leeyahay agaasimo waxa soo yiri. runtii ayaan daro inaan waxaan ka daacadahayn inaan ka daacadahayn waxaan u aragnay hadalka uu yiri maayirku iyo aflagaadada uu geystay. horta markii hore waan ka raali gelinayaa inuu aflagaada inta leeg iyo hadal aan loo meel deegin oo meel uu kaga qoray af Soomaaliga la garanayn inuu mas'uuliyiintii qaranka ugu sareeyay iyo wasiiradii waan ka raali gelinayaa wasiirkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud wasaaradda xiriirka kubadda cagta waan ka raali gelinayaa runtii hadaladii aad xanafta lahaa ee aan fiicinayn ee anshaxa ka baxsanay ku yiri. waxaan idin leenahay maayirka magaalada Burco kulama socono kumana hadli karo afka degmada iyo gobolka kuma hadli karo afka gobolka iyo afka degmada kuma hadli karo kulamana socono lamana qabno maayirka magaalada Burco. hadaladii aad iyo aad xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban oo wax Maxamed Muraad kooban ma wax aan kula qabno oo runtii ayaan daro isagoo 2 kun oo cod aan ku saarnay maayirnimada noo bariyay oo 2 jeer ka cod badan ahaanu oo ragii ugu codka yaraa degmada ka yimaad nasiib ku noo bariyay oo 2 kun codaysta inuu laabta garaaco oo yiraahdo sidii intaasaan saacadaan u qabanaya. runtii kulama socono gobolkana waxay ku tahay sharaf dhac. marlabaad waxaan leenahay kuma hadli karo afka gobolka degmada kuma hadli karo raali kamani. marlabaadna madaxweynaha waa ka raali gelinaa Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaladii uga yimid maayirka Burco wasiirada
iyo agaasimaha guud iyo xidhiirkana waa ka raali gelaynaa runtii hadallada aan fiicnayn waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo maayarku hadalladii uu halkaa ka yidhi waxaa laga yaabaa in dadka qaarisanaadaan isboortiga gobolka u hadlayahay waa hadal ay u soo dhiibeen dad dowladda xil hore ka hayay dowladdii hore tanna xilka waayey ayaa daaha dabadiisa ka hagaaya oo maayarka u soo dhiibay waa ka cunna runtii aanu ku runtii madaxweynaha waxaan leenahay mas-uuliyiinta aad dooratay ee aad u xulatay dowladdaada meel kasta ay joogaan waa mas-uuliyiin qaran waanu taageersanay waana loo shaqaynaynaa hadday heer gobol tahay iyo hadday heer qaran tahayba madaxweyne laakiin waxaan u aragnay hadallada maayarka hadalla ka kacay cadho rag xilka waayey dowladda oo daaha dabadiisa ka jooga ay u qabanayso marka ilaahay bay la dilayee waxaa la yidhi gaal la dil baa la yidhi gartiisana sii agaasimaha guud wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradu hadalladii uu ka yidhi halkaasi ee uu yidhi dowladda burco iyadaa reebtay waxaa weeyaan anigoo xildhibaan waariga xidhiirka kubadda cagta way la soo xidhiireen wasaaraddu way la soo xidhiireen annaga iyo maayirkooda joognay noo yimaadeen yidhaahdeen kooxda dowladda soo diyaargareeya waxaan u aragnaa inay naga gar joogaan oo hadallada ay sheegeen hadalla run ahaayeen markaan ka hadlo kooxdii dowladda hoose arrintu waxay ahayd markii hore in koobka loo dhigo kooxaha ku ciyaara magaca dowladaha hoose oo gobol walba hargeysa ay koox la timaado burcay koox la timaado gabiille koox la timaado laascaanood gobol walba oo dowladdiisa saasuu koobku ahaa laakiin kooxood ee lagu daray dheeraadka waxaan leenahay runtii oo u soo jeedinaynaa wasaaradda iyo agaasimaha guudba gobolkan togdheer waa caasimadii labaad isboortigu maanta meel fiican buu marayaa seere eedu waa 14 kooxood seere biidu waa 50 seere siidu waa 50 ka badanba marka waxaan soo jeedin lahay inaanay mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lixba ay kooxdani u qalanto in gobol lagu daro waxaan rajaynayaa xisaabta idinkuna oo laga yaabaa aan og in madaxweynaha iyo wasiirka iyo agaasimaha iyo xidhiirka iyo dhammaantoodba ay jecel yihiin horumarka dhalinyarada oo runtii ay mar walba jecel yihiin taladan ay qaataan oo ay qaadanayaan qaabka iyagoo u dhigeen iyo shuruudaha ilaa maan arag laakiin waxaan rajaynayaa inay runtii haddii wax qaldamaan waa la sixi karaa waxaan soo jeedin lahaa inay maaragtay aanay koox iyo laba iyo saddex iyo afar aanay gobolkani maaragtay aanay u qalmin ee ay runtii dhallinyaradeeda iyo kooxaygu ay diyaar yihiin aad dub ugu noqotaan xisaabtiinna dabeetana aadna siisaan intay ugu yartay ilaa 7 kooxood baanu ka rabnaa inaanu kaga qayb galno intay caasimaddu qaadato in laag baanu runtii ka rabnaa annagu ayaanu ka rabnaa markaa runtii sidoo kalena gobollada dalkoo dhan in maaragtay si isleeg loo siiyo si siman loo siiyo runtii waa arrinaan runtii ay soo dhoweynayaan wasaaradda iyo xidhiirka iyo agaasimuhuna oo wax fiican laakiin qaabkan ay u dhigeen runtii waa qaab ayagu eegteen ciddii ka soo baxaysa mas-uuliyaddan waxaana lagu arkaa inaanay burcaha garane inay maayarka un arkeen inaanu mas-uuliyaddan qaadi karayn inaanu daacad ka ahayn isboortiga gobolka inaanu daacad u ahayn dhallinyaradiisa inaanu rabin inuu maalgeliyo laakiin anigu aan xildhibaan waariga oo runtii maayarka dee waana la wada doorto magaalada naga wada doortay waxaan leeyahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanaan ku xulinba maayare annagoon dhallinyaradeeda inta kooxoodanaysaan shuruudo aanu buuxin doonno aanu soo ambabixin doonno iyagoo gobolka oo runtii kubadan maaragtay oon wasaaraddan la shaqayn doonno marka waxaan leeyahay diyaar baanu nahay runtii agaasime wasiir xidhiirka kubadda cagta diyaar baanu nahay in alla intaadna siisaan inaanu mas-uuliyadda aanu ka soo baxayno ganacsadan waxaan u soo jeedinayaa maalintii halkaan joognay waxaan codsi u dirnay ganacsatada qaarna codsigii baa noogu jira dahabshiil iyo talosobiyo waxa weeyaan garoonkii waa kana widi sugayaaye inaa wax nagala qabataan oo nala dhistaan baanu doonaynaa waxay ahayd maaragtay in maanta garoonku dhammaystirnaado waxaan runtii aan u mahadnaqayaa waan u sheegayaa bulshadana waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo agaasimaha guud iyo xidhiirka iyo madaxweynahaba garoonkan burco waxaa miisaaniyadda loogu daray lacagtii roogga waxaa miisaaniyadda loogu daray lacagtii lagu dhigi lahaa intaba halkaasay ku jiraan miisaaniyaddana sida labadii way ugu jiraan waa loo dhigayaa magaalooyinka loogu daray ka mid tahay waxaad halkaa ka arkaysaa inaan wasiirka iyo agaasimaha iyo xidhiirka iyo madaxweynuhu aanay hagran burco oo burco runtii ugu dareen
waana runtii gobolada loogu daray ka mid marka inagu markaan dhamaystirno waxa la isku ogaa markii dawladda hoosaana dhamaystirno in roogga la dhigo waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay oga mahadnaqaynaa wasiirka iyo xiriirka iyo agaasimaha guudna waxaan leenahay haddii aad dawladaha soo u qabanaysaan koob kanoo gobol walba ay kooxi ka imanayso way noqoto ka dhigaysaan koobka dawladaha hoosena sida caasimadana kooxi ka imanayso barcana kooxina diyaar baanu nahay haddaa ka dhigaysaan dee kooxa la badinayna saamiyada gobolada ina hal la badiyo oo si dhalinyaradu ay runtii u helaan fursado u helaan oo dee suuragal maaha in gobollo waaweyn oo intaasoo kooxdo ka jiraan kooxo ka yimaadaan marka taana waxaan rajaynayaa inaad sixi doontaan marlabaadna waa idinka raaligelinaya hadalladii runtii meel ka dhac ahaa ee uu maayarkana waan uga digayaa inuu magaca gobolka iyo degmada ku hadlo afkayga inuu ku hadlo inuu ku gargartoo barco waan uga digayaa kaana yeeli mayno mar dambe kaa yeeli mayno inaad gobolka iyo degmada ku hadasho